cali bunow qorane iyo 4 mas'uul oo ka tirsan maamulkiisa ayaa loo haystaa inay lunsadeen lacag ka badan 2 milyan oo dollar oo la sheegay in bangiga adduunka uu ku bixiyay mashaariic laga fulinayay deegaankaasi. Raggaasi ayaa lagu eedeeyay in musuqmaasuqaasi ay geysteen muddadii u dhaxaysay 25 Febraayo ilaa 30 Sebteembar ee sanadii 2019. dhammaantood waxa ay beeniyeen dacwadda loo haysto. maxkamadda ayaa mas'uuliyiintaasi ka mamnuucday inay tagaan xafiisyadooda inta uu socdo baaritaanka ka dhanka ah. cali bunow ayaa noqday barasaabkii ugu horreeyey ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee maxkamad loo soo taago dacwad musuqmaasuq ah. haddii lagu helo eedeymaha loo haysto waxa uu mutaysan karaa in uu xilka ku waayo ama xabsi loo taxaabo. dalka Kenya oo uu ka jiro guux la xiriira wax ka qabasho la'aanta musuqmaasuqa ayaa 7 barasaab oo kale waxa loo haystaa dacwad la xiriirta musuqmaasuqa, kuwaas oo haatanna wajahaya baaritaano ay ku hayso hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkani Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo EACC.